السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحة عافيمات تامية نولل وناكسن باندين رجينيا ولها شرف بدن meel kasto adduunka ka joogtaan. Soo jari waa haweenka guurnimada lagu takooro, gurlaanta lagu takooro, ubadliyada lagu takooro, sikanimada raagtay ama doobnimada raagtay lagu takooro. waxa jirta bulshadeena haweenaydu marka aanay guursanay xaaladda single-ka la yiraahdo ay ku jirto ama marka aanay wali aanay reer samaysan inaku bulshahan haweenayda naxariis baynu muujinaa inay guursan weydeen laguma canaanto oo waxa la yiraahdaa haweenaydu iyadu waa gabadh waa ninka ka loo baahan yahay inuu soo galo fadhiisto u soo gees fadhiisto gabadha shukaansado u tago oo guursado. gabadhu gurigoodii bay joogtaa, gurigeeda in lagu tago oo la sharfo oo la maamuuso. bulshadeenu sidaas ayay markaa dumarkeena u tixgelisaa. laakiin waxa jirta meelo haweenaydu haddii la guursan waayo la takooro. inta badan waa beliefs waxay aaminsan yihiin yacnihii inay tahay qof cawri badan, inay tahay qof la nacay oo ceeb badan, inay tahay qof markaas aan wanaagsanayn, shakhsi ahaan aan wanaagsanayn, aan sharaf lahayn, aan qurux lahayn, aan qiimo lahayn. marka way fogeeyaan oo way sii durkiyaan. sababta loo guursan waa maxay bay yiraahdaan. kadibna doobnimadii iyo guur la'aantii baa lagu sii takoorayaaba, iyagoo waliba sii ceebaynaya oo ku sii ceebaynaya kuwa waliba reeraha leh inay ka ilaashadaan carruurta oo inay carruurta kale ka cawriyaysan aaminsan haddii aan iyadu wali guursan. oo markaa kuwa isqaba hadday u timaado waxbay iskaga samaynayaan, way iska fogeynayaan, iyagoo markaas meelaha isla maraya hadday arkaan dhinac bay uga baydhayaan. waliba especially haweenkan ayaa aad u sii fogeeya. haddaba xaaladan waxay haweenayda lafteeda ku keentaa inay iyaduna option gooni socda ay qaadato, iyaduna inay kaliga ay markaa la noolaato, iyaduna markaa inay dadkii ka sii fogaato. xaaladani markaa waxa ay ku tuurtaa haweenayda xaalad dhinaca maskaxda. inta badan dumarkani way waashaan oo marka dambe maskaxdooda dhibaato iyo dhaawac baa soo gaadha. waxa la yiraahdaa waa saameynta xun ee bulshada ay ku samayso qof, ama waa qof bulshada victim u noqda oo bulshada goobta ku nool u noqda isagu markaas mid u tabaalaysan ama u dhibaataysan ficilada ay kula kacayaan. sidoo kale mana guursato oo mar haddii ay dhibaatadaasi ku bilaabato nin guursanayaana ma jiro oo ragguna way ka gaabsadaan, dumarkiina way ceebeeyaan, iyadina way sii fogaataa oo cidla joog bay noqotaa. guurkuna saas ayuu markaa kaga dhaca. dhibaatada noocaasi inta badan waxay beliefingka ama waxay aaminsan yihiin bay salka ku haysaa. bulsho ahaan innaka laakiin xurmada aynu dumarkeena siino, ixtiraamka iyo xaqdhowrka dumarkeena aynu siino, haweenaydu marka ay sii weynaato sharaf bay la sii weynaataa, qiimeyn bay la sii weynaataa, gabadhnimadana kama weynaato. oo haweenaydu haddii xataa da'deedu ay weynaato inan ahaan baa markasta loo guursadaa. oo haddii gabadh yar oo iyadu garoob noqotay markasta inante gabadhnimadeeda iyo qiimaheeda gabadheed iyo sharafteedu hoos uma dhacdo. waa nidaam wanaagsan, waa curfi fiican oo bulshahan aynu leenahay, laakiin meelo badan oo adduunka ka mid aan laga lahayn. intaasaan ku soo ururinayaa farxad iyo caafimaad taama iyo nolol wanaagsan baan idin rajaynayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.